عاوة وعنا كان يسقون نمد إن حكومة يا شعب كذا أن لك لا نحجر وعنا كان يسقون نمد إن تلقيستان سدا حكومة دين وش غيش لكن وعلى يدين شيء إن مركوبه الرئيسي لبعتنا يتطوّسنا كده إن لبضاب الدونو إن ذلك اللي هرجليه جلد وين ويسكحرة مقالة مقدسية قبل ذلك وعلى يدين شيء إن مركوبه الرئيسي لبعتنا يتطوّسنا أي بلادي دولة الصومالية يلو إن المسؤول كان نقطة قالها ذلك المعنى وعلى يدين شيء لبعتنا يتطوّسنا كده إن هودي كركي نبادي دكوا هيد إلى سوريكتي دولة دين الصومالية وحاليا شيء لبعتنا يتطوّسنا كده إن قفل بو دولة دو شقاية لسنية مشار سنة كنا وهان دون سنة كأوري لبعتنا يتطوّسنا إن قفل بدين تأكل هاي ومشار أما قلنا أهل الصين دونا لقى صوب بالله بجنايو إلى ديسمبر وعرّوا أرتا خلينا ذلك الجبتة معلم والبفرصة ما يشان رجارة هنا دقيستان وعرّوا هنا الآمستان والدقيستان وأنا دقيستان واحد يجيب شيء قال يسأل حساب سلطان دلكي نمشي ومراي إن ليس دقيستو وطلابه هو رئيس الدولة لماذا إن قفل بو مشار سين دونا ينوشا وزيركو iyadoo aan hal shilin oo deyn ah lagu dari doonin wixii deyn dalka lagu lahaa waxaan ugu nimid halkan anigu aan ra'iisul wasaare ka noqday iyadoona koonka dawladda aanay lacag ku jirin sanad marka uu dhamaado waxaan u gudbaynaa iyadoo in ka badan 30 milyan oo dollar ay ku jirtaa koonka dawladda Soomaaliya waxaan u nimid halkan iyadoo loo baahan yahay dalkan in shuruuc laga hirgeliyo si dadka wax loogu qabto وعادلكين وأمريكا هو الرئيسي حكومتي مدة 3 بلاد كلية برلمان كوب بالسين كبدان شن يتوان شرعي أمد والبدل كوحكولية وأمريكا هو الرئيسي الأنسحية شرعي اللي تقالن كمصماصة وعطوا بشارة سنة إنسان سيدو يري الشيخ هل كان كهر الشيخ نور بارود مادة له سحره مصماصة ومركو هريسي oo laga ansixin doono wadankan in la dhiso guddi madax bannaan oo idin kugu soo celinaya guddi madax bannaan dawladda iyo xukuumadda oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo dhaqaalihiisa haysta oo xaq u leh inay cid walba daba galaan soona xiraan cid qiyaamaysa xoolaha dalka ومركو هريسي baarlamaanka loo gudbiyay la ansixiyo sharciga isgaarsiinta sharciga xakamaynta hubka شرعي وحبرشة شرعي عافمات ومركوبه الرئيسي اعتماد حكومة تراهدا سيدال كندبت اللوغة سارو وإن لها لا شراع كوا سوا بالله وعن قامت قوينا إنك بدن دوري طوان كلاو يغنى لدمستري دونا سيدي وزير كامل قال كانوا دين كغا شاقي ومركوبه الرئيسي وأمني مقالة مقدشو lagu sugo xoog muruq maskax iyo dhaqaale Soomaaliyeed oo kaliya waa ogaayeen shacabka Soomaaliyeed wali dareemayaan inaan amnigu ahayn sidii ugu horeysay ama sidii uu rabay inuu noqdo laakiin waxaan idin sheegayaa in miisaaniyadda sanadkan aan baarlamaanka u gudbinay ay ka duwan tahay wixii miisaaniyada wadankan la gudbin jiray waxa ku jirta koow in la kordhiyay lacagta amniga oo markii ugu horeysay aan u qoondeynay lacag miisaaniyada ku jirta oo looga shaqeeyo sirdoonka kaliya waa markii ugu horeysay wadanka oo miisaaniyada ku soo darnay dhaqaale ka badan 5 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso iskuulo lacag laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed
ومركي ugu horeysay ee miisaaniyada lagu daro dhaqaale lagu dhisay isbitaallo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ومركي ugu horeysay ee miisaaniyada lagu daro $3 milyan oo lagu dhiso dhamaystiro dastuurka qabyada ah oo laga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed oo aan laga soo tuugsan dalka dibadiisa ومركي ugu horeysay ee loo kordhiyo dhaqaalaha miisaaniyada akademiyada afka iyo suugaanka akademiyada af Soomaaliga in loo dhiso dhismaheedii oo naga caawinayo sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa markii ugu horeysay ee miisaaniyada dawladda Soomaaliya lagu soo daro dhaqaale lagu dhiso warshado military ama waxyaabo kale oo muhiim ah dharka militariga loogu talo waa markii ugu horeysay xukuumaddu miisaaniyadeeda ay ku salayso mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed 8 bilood ay joogaan wasiirada halkan kuwa idin imaan doona waxay idin sheegi doonaan waa markii ugu horeysay oo si dhab ah u bilowno inaan xabad u tirino ciidanka Soomaaliyeed بوليس يا ميليتري ومركي ugu horeysay oo sharciga xaqinta ciidanka u gudbino baarlamaanka si kuwa howlgabka ah kuwa dhaawacma kuwa dhibaataysan loo geliyo meel gooniya laakiin wali ay mushaarkooda u qaataan wasiirada idin kala hadli doona waxay xukuumaddu qabatay waxa ay rabtay inay qabato way idin hor imaan doonaan